ninkan idin muuqda waad wada taqaanaan waa xaaji daba casar oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka. dhowaantan waxa uu dhigay arrin ay si weyn u soo dhaweeyeen wadamo badan oo islaam ah kuwaas oo si weyn ugu farxay jiritaanka iyo sidoo kale tallaabadii uu qaaday xaaji daba casar oo ah wadaad Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Mareykanka. marka hore ila daabo dood adag oo dhaxmartay kaamiraamaano iyo wariyaal dabcan ka soo jeeda Yahuudda laakiin dalka Mareykanka ku sugan oo goob Soomaalidu ay degto doonaya inay muuqaalo ku duubtaan laakiin xaaji daba casar iyo iyagu maxaa kala qabsaday. walaalayaal saad u jeedaan waa dadkan waxaad akhrisaan jaraa'idka Israa'iil akhriya Netanyahu wuxuu ku bixiyay 100 milyan iyo Mossad si ay u burburiyaan Amerika si ay dadka propaganda ugu sameeyaan si ay dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaalahooda u burburiyaan marka Soomaaliyay inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun fala tamutunna illa wa antum muslimun wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun kusabra diintiina hawa rumaysanina gaalada wixii waxaaji daba casar oo ah nin Soomaali isla markaana ku dhaqan dalka Mareykanka si cool ayuu ula hadlay niman ka soo jeeda Yahuudda laakiin dalka Mareykanka ku sugnaa kuwaas oo doonayay mool Soomaalidu ay si weyn ugu badan tahay inay waraysi dabcan ku qaataan. waxa uu leeyahay Netanyahu waa nin islaamka dhibaato badan ku haya. Netanyahu xasuuq ayuu geystay. Netanyahu burburka Mareykanka ayaa uu ka shaqeynaya aayado Quraan ayuu daliishaday. dad badan oo dunida ah ayaa geesinimada iyo kartida ka muuqata si weyn u soo dhaweeyay. carabtii iyo wadamo badan oo islaam ah ayaa waxa ay dhankooda dood adag ka dhex abuurtay xaaladan uu ku dhaqaaqay xaaji daba casar. qaar ka mid ah oo baraha bulshada dhigaya muuqaalka xaaji daba casar waxa ay leeyihiin kani waa nin qawi ah oo ay kala jeedaan kani waa nin xoog badan oo ku kalsoon ilaahigiisa iyo sidoo kaleba inaanu waxyeeleyn karin wadanka uu jooga ee Mareykanka. Soomaalida inta badan wadamada dunida gaar ahaan kuwa islaamka si weyn ayay ugu sheegaan inay yihiin wadan dadkiisu ay qaataan go'aan walba xitaa haddii ay dhibaato kaga imaanayso sida uu muujiyana daba casar waxa uu leeyahay Mareykanka islaamka iyo dal walba ayuu burburinayaa. Netanyahu waa nin cadow ah caruur Falastiiniyiin ah ayuu dilay dumarkii ayuu laayay waa in cadaalad la hor keenaa. intaas kadib wariyihii ayaa ka codsanaya inuu siiyo waqti ay wax ku duubtaan laakiin waa uu ka diidaya oo waxa uu leeyahay ha itaabanin hana ii soo dhawaanin isagoo ku qeylinaya erayo Ingiriis ah oo doonayo inuu ku muujiyo dareenkiisa. aayado Quraan ayaa u sii dheer dad badan oo Soomaali ah ayay si weyn u soo jiidatay talaabadan. dabcan Mareykanka muddooyinkii dambe waxaa ka socday in la qabqabto dadka Soomaaliyeed oo loo tarxiilo dalkooda hooyo laakiin go'aanka iyo sidoo kaleba adkeysiga ka muuqanaya xaaji daba casar waxa uu muujinayaa inuu yahay nin xitaa ku qanacsan haddii dalkiisa loo celiyo oo wax dhibaato aanu ku qabin inkastoo uu ku doodayo inuu yahay nin Amerikaan ah oo dalka si sharciga ku jooga laakiin dhinaca kale waxa uu leeyahay islaamkii ayaad layseen lacago badan ayaad ku bixisaan wararka propagandada ah mana idin siinaya wax waraysi ah adinkuna wax ma duubanaysaan. isaga oo telefonkiisa kor u haya ayaa una ka duwa muuqaalo dadku ay si weyn ula dhaceen. wadamo badan oo dunida ah ayaa dabcan muuqaalkan si weyn u hadalhaya saacadihii tagay gaar ahaan dadka reer Falastiin oo leh waad mahadsan tahay xaaji kuwaas oo si weyn ugu mahadnaqay inuu ku hadlo luuqadoodii oo uu leeyahay walaalaheeni Falastiin ayaad layseen islaamkii oo talaabadan ha qaadina. Netanyahu Soomaaliya ka cishta faragelinta oo Soomaaliland ku magacaabay dal madax banaana waxa uu leeyahay waa mid sharci darro ah marnaba ha ka yeelina. aayado Quraan ayaa uu soo qaadanaya daqiiqadba kadibna waxa uu ku darayaa erayo Ingiriis ah iyo kuwa Soomaali ah kuwaas oo uu doonayo inuu ku booriyo dadka Soomaaliyeed. muuqaalkan saacadihii taga baraha bulshada Soomaalida iyo wadamada islaamka ayaa si weyn loo wadwaday waxaana tani ay muujisay dadaal xoogan oo xaaji daba casar iyo kalsooni iyo geesinimo badan oo uu kala hortagay niman Yahuudi ah oo doonayay inay warar propaganda ay ka duwaan dalka Mareykanka sida uu isagu ku doodayo.
dabacasar inta taqaana waa nin baraha bulshada laga yaqaano dhowr jeer oo hore waxa uu ka soo muuqday isagoo aayado qur-aan iyo sidoo kaleba kalaamka alle kor u qaadaya waxaana lagu tiriyaa wadaadada dalka maraykanka ku sugan isla markaana ka soo jeeda soomaaliya si weynna u taageersan midnimada ummadda soomaaliyeed isagoo muuqaalkii uu duubaya ku yidhi somalilan waxa ay ka mid tahay soomaaliya mana jirto aqoonsi beelaadka netanyahu soomaaliya iska dhiciya waa daalim ninkan intaas ayaa ugu waaweynaa hadalkii ka soo yeedhay xaaji dabacasar oo saacadihii tegey baraha bulshada si weyn loo hadal hayay